هاي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما أنت تاي أحد تاريخنا يكون بأنت هاي اللحدي بش السديدات لبكون يصدح لباتنك وحو شركينا جرائد كدغان yahay dhowr qodob oo isugu jirto xaaladaha bariyahan magaalada Muqdisho howlaha ka socdo annagoo rabno in aan shacabka magaalada Muqdisho degan gaarsiino waxyaabaha bariyahan ku batay social media oo runtii waxyaabo badan lagu tilmaami karaan shaxdaro oo cid kasta iska hadaaqayso meediyahana ay iska soo qaadanayaan ay gudbinayaan ayagoon wax xaqiijin ah aan samaynin ayaa ku batay magaalada. taas ayaa waxay keentay inaan ka jawaabno. marka hore waxaan u mahad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala oo nawaafajiyay nana garadsiiyay inaan u khidmayno ummadan Soomaaliyeed si daacad ah hufnaan ah Ilaahayna uu nala ogyahay. sidaas la mid ah waxaan uga mahad celinaynaa madaxda naga sarreysa ugu horeeya madaxweynaha dadaalka dheer ay ugu jiraan dabargoynta khawaarijta iyo xoreynta gobolada Soomaaliya ay weli ku rafanayaan khawaarijti ay ku dambeeyaan sida looga cirib tiri lahaa, taasoo keentay madaxweynihii inuu ka guuro caasimadii oo xafiiskiisii ka guuro oo tago maaragtay goboladii dhexe u guuro si looga xoreeyo khawaarijta. madaxweynana waa ku mahadsanyahay, waan uga mahad celinaynaa asiga iyo intii halka u raacday shaqadana u taagan. intaas kadib waxaan rabnaa inaan halkan ka soo gudbiyo qayla dhaanta bariyahan yeerayso oo aad wada maqlayseen oo qolo ay ka cabanaysay kaasa Itaaliya kicintii laga kiciyay, qolo ay ka cabanayeen warshadii isbuunyada oo ku tiilay laboorka agtiisa iyo marmarkii soonahaas, qolo ka qaylinaysa gubadley iyo waxa racade iyo Soomaaliyaas ayaguna ka cabanayo. inahaas ayaan rabnaa bal inaan wax isaga sheegno haddii Ilaahay yiraahdo. runtii markaan ka bilaabo dawladda Soomaaliya saad la wada socotiinba waa dawlad ay dadku soo doorteen oo baarlamaanteeri ah oo diyaar u ah inay u khidmayso dadka. dawlad waa garsoor iyo fulin. marka insaan la wada soconaba waxaa jira in badan oo kamid ah dholalkii danta guud ay lahayd dawladda Soomaaliya ay lahayd ama kuwii sida gaarka ah dawladaha kale ama safaaradaha ama ay u lahaayeen in badan oo kamid waa la degay. waxaa laazim ah ama waajib ah markay u baahdaan hay'adahaasi dawladda in loo baneeyo meeshii ayagu ay ku shaqay lahaayeen. sidaas la mid ah shacab Soomaaliyeed ayaa guriga ku lahay magaalada Muqdisho, hantidoodii waa lagu habsaday. haddii intay dacwo tageen dacwadii lagu jid helay maxkamadda ay xukuntay, qaarkood dukumeenti falsa loo sameystay, maxkamadda ay xukuntay la fuli tago in la yiraahdo anaga la kicinaa iyo ana layla dagaalsan yahay iyo intaasoo sanaan ku noolaa iyo aqliyad ma noqonayso. waxaan la wada soconaa sanadii la soo dhaafay fulintu inay yaraatay, taasna ay sababtay in dadku ay u dacwo tagaan khawaarijta ay u dacwo doontaan ay xukun doontaan oo halkaasi maaragtay loo aadi jiray. annagoo maanta dalka madax ka ah dawlad ka ah ma rabno in loo khawaarijta inaan gaarsiino dadku inay khawaarijta u dacwo tagaan, maadaama awaamirka soo baxday in dadkii dacwo tagaan garsoorkii markii garsoorku oo wax soo xukumanayay amniga ay fuliyaan waa waajib ka saaran waa
inta markaan ka gudbo waxaan rabaa arinta Casa Italia saan la wada soconaba Casa Italia Talyaaniga iskale aan ayuuna ku yahay safaaradda Talyaaniga warqadii ay soo dirtay waa taa warqadii wasaaradda khaarijiga ay ku soo xirtana waa taas warqadii gobolka Banaadir ku xirana waa ka waxay soo martay dariiqi saxda ah ay ku codsanayaan safaaradda Talyaaniga ay leedahay waxaan rabnaa in noola baneeyo dhulkii aan lahaynay oo Casa Italia la dhigi jiray in aan uga furno adeegyo ummadda Soomaaliyeed dhallaanka dhalinyarada Soomaaliyeed aan shaqo abuur ugu sameynay xirfado sida darteed waxay soo codsadeen in loo baneeyo markay codsadeen annaga toosna ma soo aadin wasaaradda arrimaha dibadda ay aadeen wasaaradda arrimaha dibadda warqad noo soo qortay warqadii wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaaniga waa kuwaasa si aan ku xirano waa taa oo aan leenahay hala baneeyo marka Casa Italia shakhsina ma lahayn cid gaar oo leedna ma jirin cid alle cid joogto ama deganeedna ama sharci daraha ku deganaato ama sharciga ku deganaato si ay u sheeganayaan qaarkood sharci ma ku deganayne go'aan waxa lagu gaaray in laga guuro taariikhda goormay ahayd markaan warqad qornay waxaan qornaa annaga waxayna soo gaartay 23 bishii saddexaad ayayna soo gaartay 2023 annaguna waxaan warqadda ku lifaaqnay 25 bishii afraad 2023 Abriil iyo May iyo June iyo July oo hadda dhamaatay intaas ayaan sugaynay oo maalin ugu kordhinaynay taasna waxay sababtay markii dambe in go'aan la qaato sidaan looga raro dadka ayaga ahaa waa arinta Casa Italia arinta kale ee ku saabsan ku saabsan gubadley iyo waxa racade oo bariyaan laga qaylinaayo sideedaba annaga cid bini aadam ma rabno inaan gacantayna ku dulmino laakiin dadka waxaan rabnaa inay hubiyaan waxa isaga hadaaqayaan in madaxda Soomaaliyeed iyo ummadda caa'ilooyinkii madaxweynaha iyo afka la raaco wax macna ay soo kordhinaysa ma jirto ama la yiraahdo waxaan jirinba in la abuuro ilaahay wuxuu leeyahay ayyuhalladina aamanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu hadduu idin yimaado mid faasiqa oo war idin soo sheego ha ku duulinay fatabayyanu hubsado leeyahay aayadaasi quraanka dadku ay ku xadgudbayaan war markaad war maqasho waxa ku soo gaar horta hubi qolaa hadda maalmaha iska qaylinayso laakiin aniga sideedaba mas'uuliyadda markaan qabto kale ma jecli in la qayliyo inaan la qaylin in la caaytamo in la amaantamo intaba isugu kay mid waay waxa iga go'an inaan shaqeeyo shaqana aan qabto ilaahay dartiisna aan u shaqeeyo daacad aan ku shaqeeyo intaas ayaa naga go'an laakiin haddaan cid kasta aan u jawaabi tagno oo cid ka sax maxay saas u jira aan dhig tagno annaga dhan waxa waaye waa isku daalaynaa wax aan kala gaarayna ma jirto marka waxaan rabnaa annaga inaan dhageysano nin shaacira wuxuu yiri wa idab tuliyat fa huwa ahmaqun kaannaka lam tasma' wa lam yaqul hadii lagugu imtixaano mid ahmaqa oo doqona hadalkiisa adoon maqalka soo qaad iyo asoon dhihin hadii aan daba joogi tagno marka social media maxaa lagu qoray Facebook maxaa laga yiri xagga maxaa la hadan daba joogi tagno umadu shaqaymayno si aan umadu ugu khidmayno marka ma danaynayno marka arinta gubadley iyo waxa raacada ka taagan laftirkeeda ee dad badan ay qofba qoloba si u hadaaqayso qolo ay leedahay waa saxanahay dhulkayniya nagala qaatay si aad baraasi qaldanaan noogala sharciyeystay waa noola soo celiyay qolo ay leeyihiin waxaan leenahay dukumiinti aan haysanaa had dacwo tagaano garsoorka ha aadaano ha ku qancaano ha ku kalsoonaadaano waxay ka helaan laakiin in banaanka laga qayliyo wax macna ay soo kordhinayaan ma laha sidaas la mid ah dawladda hoose iyo gobolka Banaadir waxaan sameynay xafiiska cabashada ayaan sameynay xafiisaan u furnay telefoon aan u sameynayna oo lambar gaaban leh oo dadku ay kala soo xiriiri karaan hadii la yiraahdo si ay cabashadooda u yimaadaan uga jawaabno cidaan wax u qaban karno waxa soo yeeray tan oo warshadii isbuunyada oo muxuu ahaa niman odayaal ah oo macnaha muxuu ahaa Xeyle Cabdi Bariis iyo nin kale sida Saalax lalaay shalay igu yimideen iyo xildhibaanna ka socdo iyo senatoro shalay yimiday runtii waxay yiraahdeen waxaan ka soconaa meeshaasi ballama iga qabsadeen waan qaabilay waana ku qanciyay dukumiintiga aniga aan qoray iskama qorina dukumiinti iga yimiday safalafeeshinka ama hay'adda duulista rayidka ah warqada ii soo qortay ayaan ka jawaabay oo sheeganaysa elaboorka agtiisa in barakacayaasha degan ay sababi karaan amni darro garoonka saamayso
anoo ka jawaabaya warqad qoray waxaan dhahaa dadka si nabad ah meel lagu dajiyo ana la kiciyo intaas un baan dhahnay laakiin dhulaa la dhiibay iyo dhulkii la boobay iyo waana la dhacay iyo ilaa uu nin xildhibaan oo jooga Hargeysa oo isoo wacay oo daraa shala subaxaan wada hadlaynay oo runtii si fiican ay u hadleen dadkaasi hadal asluubaysanayna ku hadleen laakiin qaar aan hadal asluubaysan ku hadlina iska jiro laakiin dhig shaq u siimayno ala kulli xaal dadkaas odayaashana waa yimaadeen shala galab waana qanciyay waana u jawaabay waan is aragnay warqadii la soo qoray oo aan ka jawaabayna waan tusay hortoodana soo dhigay haddana waxaan dhahay shaqan waxaan u diray qoliyada dhulka iyo ayaga isu diray marka ala kulli xaal taas iidana waa sidaas waxa suuragal ah hay'adii dawladda inay u baahdaan dhulkoodii inay u baahdaan sida hadda xarunta xisbiga ee dayactirka lagu sameeyay ay rabto golaha wasiiradu inay degaan iyo ra'iisul wasaarihi hadii la yiraahdo ana noo sharciyeysan yahay aqliga laamiya waa maya dhul dawladdu goortay u baatay ka qaadahe ama sharci feersa u sameeyso ama mid kale u sameeyso aday ku taala sharciyada feersada ah oo Cabdulshadee laga sameystay ama kuwa been abuurka ah ama kuwa sida fudud meelaha looga qaatay intaba waxaan maleynaa inay wax badan dhul dan guud ah wuxuu u baahan yahay marka la wareejinayo oo cid bareebada la siinayo process soo maraya waa in wasaaraddu ay tiraahdaa waa ka maaranay waa in madaxweynuhu nolosha ku soo xiraa waa in duqa magaalada uu ogolaadaa u bixiyaa sidaas ay ku xalaaloobi karaa laakiin dhul dan guud ee dawladda leeyahay maslaxad caam ah oo dadkoo dhan iska lahay shakhsi kaligiis ma qaadan kariyo taas idana waxaan rabaa inaad ogaatiin aan rabnaa ala kulli xaal dalku hore u socdaa waxaan rabnaa inaan la jaan qaadno adduunka naga tagay oo 30 sano aan dib uga dhacnay inaan la jaan qaadno rabnaa lamana jaan qaadi karno intaan iska daba qaylinayna 40 saac intaan iska daba qaylinayno lama jaan qaadi karno waxaan rabnaa meediyaha laftirkooda waxaan u sheegaynaa waxyaabo ay dadka ka soo qabanayaan ee isleeyihiin maaragtay war laga abuuro xoogaa wax ka abuura suuragal maahan waxyaabo aad gudbinaysiin waxaad ka fiirsateen aadaano laftirkeeda maxaa yeelay waxa aad gudbinaysiin ummadooda inaad dhageysanayso marka cadaaladdu idinka bilaabanaysa haddii aad wax walba sheegtiin cadaalad darrada aad qayb ka noqonaysiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh